السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن آدم محمد كسر دبات جل لكن أبوك صديق أكاديمي أو عاونا إن الإنجاز في الكبرتين قرآن كريم كان إذا كلية أغرسين إن شاء الله مقال كان ما أنت وحنكو قادن دونا درسي أفري توبنات توبرك معلك هنجادة على منهج التطبيق في تعليم قواعد القراءة والكتابة كفائدة إن شاء الله درسي كان ما أنت وحنكو قادن دونا لو ما يكيال كانوا حواي كاف يلام iyo mim iyo nun iyo ha iyo ya in maanta waxaan bilaabaynaa insha Allah yani maxalla loo maakayalka qaabkii u qormaya markay ugu horeeyaan iyo markay dhax ku jiraan iyo markay u dambeeyaan iyo qaabkii ilmaha loo baro ayaan halkan ka sii bilaabaynaa insha Allah waxaan ku bilaabaynaa kaafka ayaan ku bilaabaynaa u fiirsa meeshan marka kaaf markuu ugu horeeyo waa sidan waa u fiirsa meeshan kaafka markuu ugu horeeyo waa sidan saan loo qoraa kaaf number 1 kaaf number 2 iyo kaaf number 3 kaaf number 1 kaaf number 2 kaaf number 3 marka meeshan waxa baraarujin mudan marka ilmaha aad maxalla aad baris aad faansiinaysid u fiirs meeshan badana waxay qaldan waxay isku qaldan kaafka yiriiska mujida kan horta kan waa kaaf yiriis waay intay soo saaray markay kaaf weyn markay qoraan haddana yiriiskan ayaa meeshan ka saaran badana ilmaha saasay sameeyaan u fiirsa marka yani maxalla marka ilmaha ka qabta yani ka taxadara oo maxalla ku baraarujiya inaysan maxalla kaaf marka ugu horeeyo kaafka inaysan ka dawgeen maxaa kaafka saana waa loo qoraa saana waa la dhikara hadii oo yiriiska uu soo qaa inta uu ka saar jaa lawa kaaf uu ka noqonaya cuniga ku baraaruji waxa dhahaysa maxalla yani lawa kaaf uu ka noqonin marka kaafka weynka aqortid hadan kaaf yiriis ka dawgeena ku darin dheh marka oo yani uu saan u qormaayo waxa kaafka yiriiska marka la saara waxa marka ugu dambeeyo way dheh marka ugu dambeeyo bis ayaa saas loo qori karaa laakiin marka ugu dambeeyo ugu horeeyo saas ayaa loo qoraya marka uu dhax ku jiro saas ayaa loo qoraya marka ugu dambeeyana saas ayaa loo qoraya hadda marka tusaalooyinka sidaan amal u keen tusaalooyinka sidaan amal u fiirso yani maxallaha ka ta ba ta ka ba u fiirso ba ta ka فهمتها هاي مركو على سكوتر اوفيس مركا يعني وحلينا كاف نمبر 1 كاف نمبر 2 كاف نمبر 3 كاف مركو اوري اب واكنا اساسا لو قرا كاف مركو ودخ كجيس لو قرا واكنا اساسا لو قرا كاف مركو قدام سي لو قرا اساسا لو قرا اوفيس ميشان كاف مركو اساسا مقتاي اساسا دهو وجد اساس كا وجد يا كخيغو تا يا كخيغتو تا يا كخيغو با يعني محل يا كخيغتو يعني تا فرتده واتنا با فرتده واتنا كنا محاواي الباب كواي اوفيس ميشان تا يا كخيغ كاف كان مركو ودخ كجيس لو قرا واكنا كإلالي انه محلها موجده كاف كان يريسك انه لبدا دحق او كسارو عنك كإلالي بدنا ilmaan meesha maxalla way ku wareeraan اوفيس ميشان saa dhaho kaba saa dhaho inta marka intan iyo waxa saar intan iyo waxba saarin ma fahantin yaa ugu dambe ba fartida ku daro ka bacdi wax ma ka dambe maya الباب كسو لابد الباب كسو حر كبعد يا خيرته قدام waxa way ba yaa ku xigo ta yaa ugu dambeeyo kaaf markuu maxallaha ugu dambeeyo saas ayaa la hayaa u sheeg yani maxalla waa kana kaaf markuu ugu dambeeyo saas loo qoraya u fiirsi meeshan saa ayaa loo qoraya mujida meeshan saas loo qoraa marka yani maxalla sidaas ayaa ku faahfaahin kartaa cunuga iyo maxallaha yani ama ardada saas ayaa ku faahfaahin kartaa kaafka markuu ugu horeeyo iyo markuu dhax ku jiro iyo markuu ugu dambeeyo sidaas ayaa waxaan ku soo gaarnay dhamaadka darsigeena maanta insha Allah hadii aad ka faa'iideysatay fadlan walaalkaaga u sii gudbi si asigan ugu faa'iideysto jazaakumullahu khayr salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh